wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salaaman Ciise Axmed Hagle Toosiye oo haatan ku sugan magaalada Burco ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka Togdheerka degmada iyo waliba guddiga gurmadka abaaraha. ujeedada kulankan ayaa ah isxogoreysi ku saabsan heerka uu marayo shuban biyoodku, hirgelinta amarada lagu xakameeyo xanuunkan ee ay dawladdu soo saartay iyo waliba kordhinta wacyigelinta bulshada gobolka Togdheer. ugu horreynna waxaa kulankan ka hadlay isuduwaha caafimaadka barasaabka gobolka Togdheer, maayirka degmada Burco iyo mas'uuliyiin kale. goobtii shubanka loogu talagalay waxa jooga ku jira dad ku dhow 110 ayaa ku jira. dadkaas xaaladoodu aad bay u wanaagsan tahay. ilaa iyo xalay waxa dhintay 2 qof ayaa ku dhintay goobtaas. waxa kale oo jeelka ku dhintay 2 qof. wax kale oo dhimasho ma hayno. waxa soo galay ilaa intii la furay goobta shubanka waxa soo galay dad ka badan 3,000 oo qof. hase yeeshee geeridu way ka yar tahay marka la isu wada geeyo 30 qof ka yartay aad ay ka yartahay. waxa laga yaabaa warbixinta gacanta ku hayaan imika akhriyo in dadku u qaadan waayay. gobolka waxa la keenay dhakhtarkii ugu weynaa ee u khaas ahaa oo loo dooray gobolka. waxa la daweeyay 9,150 qof ayaa la daweeyay. maanta waxa soo saaray dhowr qodob. nadaafadu waa koow. iskuuladu muddada la yiri waxa soo akhristaan ee imtixaanka maadaama ribadaan lagu jiro aynu ururka dadkana iska ilaalinayno way maqnaanayaan. dhowrka isixishay la fasaxay loo asteeyay waa in marka sidiisa loo qaataa. maanta ayaanu ku dhawaaqnay digniintii ugu dambeysay meel haba yaraatay caruur la isugu keeni kara inaanay jirin. taana berito subax ciidamada amnigu way soo marayaan iskuul kasta iyo malcaamad kasta iyo markis kasta meel kasta oo dadku isugu yimaadaan. meeshii amarka dawladda ka soo baxay toos u fulin weydana waxa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan. bulshada reer Togdheer gaar ahaan reer Burcana waxaan u sheegaynaa wuxuu u baahan yahay xanuunkan wada jir. sababta bixintiisuna ugu badan waxa weeye 80% sida naloo sheegay inay tahay in la iska ilaaliyo sida uu xanuunkan ku faafayo iyo sida la isugu gudbinayo. waxaan dhiiri gelinaynaa in aad loogu soo wada jeesto arrintan oo qof kasta wax ka qaban karaya wuxuu ka qaban karaya ka qabto. gabagabadii waxaa kulankan ka hadlay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Hagle Toosiye. Burco way nagaga warwar badan tahay oo nagaga culays iyo miisaan badan tahay goobihii hore ee uu ka jira cudurku. waayo tirada dadka ku nool ayaa aad u badan. waxa ku nool dad lagu qiyaaso 500,000. wasaaradda ahaanna mar walba Burco ishaanu ku haynay. waxa aanu dejinay saa gudoomiyaha gobolku sheegay nidaam soo gudbina annagoo isticmaalayna dhammaanba xarumaha caafimaadka MCH-da magaalada oo mid walba gaari iyo neeras iyo daawadiyo isa saaran u istaagayo. waxaanu samaynaynaa oo idiin soo gudbin doonaa haddii alla ka dhigo sida ugu dhaqsaha badan le number waa uba yaallaa. waa Bashiir Xaaji Ibraahin, Home Cable TV, Burco.